السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادين سلامة أصحابتي ديكو قاليقة meel waliba dunida dacaladeeda ka joogtiin waxaan rajeynaa inaad caafimaad qabtiin. alxamdulilah ana sidoo kale xoogaa iska mashquul ah iska jiray saas aan kaga yar mashquul insha Allah wixii hadda ka dambeeyo insha Allah fiidiyalkeena waan soo gelin doonaa insha Allah. maanta maxaa ila soo sheergareeyay asxaabteyda maanta waxaa ila soo sheergareeyay rooti qudrad dhaxda laga gelinayo horey waan soo geliyay janaalka rooti laakiin kan waxaa maanta waxa lagu sameeyay qudrad ayaa lagu habeeyay ma fahanteen ma sha Allah waa casheero inaba caadi ahayn kala xiran soo dhawaada la asxaabteyda igu qaaliga haddii aad nagu cusub tahay please subscribe noo saar janaalka gambaleelka on ka dhigo si uu soo gaaro next video insha Allah. haddii aad hore noola joogtayna la joogaado waa ku mahadsan tahay like-ta iyo share-ta iyo comment-gaba waa xagiina soo dhawaada la asxaabteyda igu qaaliga nala daawado muuqaalkan cusub aan idinkugu talagalay waxyaabaha aan ka sameeyay iyo sida aan u sameeyay daawasho wacan. burka qiyaastiisa waxa waaye koobka shaaha aan ku soo cabiray waa 5 koob waayo qof walba iyo qiyaastiisa insha Allah. hadda waxaan kaloo ku soo jabiyo waa xabad ukun waxaan kaloo hadda ku soo daray waa 2 qaado oo sokor sokorta 2 qaado ka badan uma baahnin labadaas qaado aan ugu filan ma fahanteen. waxaa kaloo hadda ku soo darayaa waa leebato insha Allah leebato qiyaas aydan ugu filan ayaan ku soo darsanayaa insha Allah. waxaan kaloo hadda ku soo darayaa cusbo yar cusbada kama badinaysid insha Allah qiyaasta iska saxda qiyaas iska saxda insha Allah roodka wuxuu kugu soo baxaya ma sha Allah rooti inaba caadi ahayn ayuu kugu soo baxaya. waxaa kaloo hadda ku soo darayaa milky powder waa caanaha budada ayaan ku soo darayaa insha Allah. hadda qaadadii koowaad ayaan ku daray qaadadii labaad ayaan soo celinayaa insha Allah. ما شاء الله labada qaado hadda soo dhameystiray kadib waxaan ku qasaa insha Allah biyo yar oo qandac ah ku qasaya insha Allah. asxaabteyda isla socod wanaagsan ayaan idin leeyahay sidaan waan xashayaa si fiican u soo xashayaa qasitaanka waxa waaye waa inaad si fiican u qasid bur xashitaan la waaye haddii aad burka si fiican u xashtid waxyaabaha aad ka sameynaysid oo dhan insha Allah way ku hagaagayaan ma fahanteen. hadda ani mashiina ii taalo laakiin gacanta hadda ku qasaya waxaa laga yaabaa asxaabteyda dad kamid ah inaysan haysanin mashiinta lagu qasayo sidaas ayaa macnaha gacanta ugu qasaya si ayagana ay macnaha ay gacanta ugu qastaan ayagana uga faa'iideystaan insha Allah. isla socod wanaagsan asxaabteyda hadda burka waa soo xashayaa kadib markii aan soo xasho ayaad arki doontaa sida uu ku soo baxayo insha Allah. nala daawada muuqaalkan si adinkana uga sii faa'iideysatiin insha Allah. hadda xashitaankan bilawnay xashitaanka ayaan bilaabay ma sha Allah saas u soo xashaysaa saas u soo xashaya insha Allah. kadib markii aan soo xashana waad arki doontiin hadduu Allah raxmaan kiraado burka waxa waaye xashitaanka daasi fiican u xashtid ma sha Allah tabarakallah waxyaabaha ka sameynaysa si fiican ayuu kugu soo baxayaa. dad waxaa arkaysaa ku dhahayo waa sameeyay laakiin burkii wixii dhan waa ii hagaag waayo rootiga xoogaa dhaxda ceyrin ayuu ka noqday marka xashitaanka ayaa ka halaysan xashitaanka si fiican hadaa burka u xashtid ma sha Allah sidaan softida kugu soo baxaya insha Allah. hadda waxaan kaloo oo kula xashaya waa batar ayaan kula xashaya batarka wuxuu ka dhigayaa softi inaba caadi ahayn sorry markii aan ku darayo kuma aana qabanin laakiin batar ayaan ku daray ma sha Allah sida ugu jeedin burka sidaan ku soo xashay waan daboolayaa waa isku soo noqonaynaa markuu noo qamiiro. hadda waxaan guda galnay waa suugadii aan dib aan ku habeyn lahayn aan rootiga dhexda ka gelinayn hilibkii iyo yaanyadii wixii dhan ayaa isku soo qaleynay
baradho qiyaas ayaan kusoo darsaday, waa 4 xabo aan soo jarjartay waaye asxaabteyda. maasha Allah hadda baradhadii ayaan kusoo daray. kadib insha Allah waa labayaa, waxaana ku daraa insha Allah maraq digaag yar. kadibna markii aan labo daboolka aan u dhiibaya hadduu Allah raxmaanka yiraahdo. waxaan rabaa suugo yar oo khatar ah oo macaan inay kusoo baxdo insha Allah. hadda sidaan aan kusoo laba baradhadana ma la rabo inay burburto. insha Allah wax yar ayaa la rabaa inay hilibkaas aan ku huuriyo. hilibkaas inaan haddana waxaan dib ugu soo noqonay burkii wuu noo soo qamiira asxaabteyda. maasha Allah wuu noo soo fuuray. haddana insha Allah waa fidinayaa. sidan ayaan kusoo fidiyay maasha Allah tabaarakallah. xabada ugu horeysa design-ka u sameynaa insha Allah ila daawada. 3 design ayaan u sameynaynaa insha Allah. 3 design waxaan ka soo qaadanaynaa mid waliba hal xabo. halkii xabo insha Allah tusaaluhu idinku filan yahay sida aan rajeynayo. insha Allah isla socod wanaagsan asxaabteyda ugu qaaliga ah. 3daas 4 gees ayaan u jaray, 4 xabaana ka dhigay si ay ugu joodiin muuqaalkayga. maasha Allah tabaarakallah. si sambuuska camal u jirinaysa camal u soo jaranaysa 3 gees ahaan ayaa kasoo dhigaysa. insha Allah hadda waxaan soo qaadanayaa qudaartii aan soo kariyay ayaan ku habeynaynaa asxaabteyda. qudaartii ayaan hadda ku shubay. kadib insha Allah sidaan u design gareynayo macnaha u habeynayo waa arki doontiin. insha Allah idinkana video ma dhamaystirta. insha Allah waa ka heli doontiin idinkana si aad uga faa'iideysatiin. walaalaha kale watan insha Allah si aygan uga faa'iideystaan u sii share garee insha Allah. sidaas ayaan u habeynayaa. ma fahanteen asxaabteyda. insha Allah waxaan rajeynayaa idinkana inaad sidaas iyo si lamid ah u habeysan doontiin hadduu Allah raxmaanka yiraahdo. xabadii ugu horeysay waa xabada hadda sameynayno. insha Allah markaan xabadan aan sameynayno waxaan noo xigi doono xabada labaad. maasha Allah xabadii ugu horeysay sidaan ay kusoo baxday. maasha Allah tabaarakallah sidaas ay kusoo baxday xabadii ugu horeysay. waxaan noo xigi doona midda labaad ayaa noo xigi doonta. ayadana sida aan u sameyn doono waa idin la arki doontiin insha Allah. waa wax yar oo iska easy ah aad u fudud waaye. maasha Allah xabadii labaad waa hadda waxa aan soo fidiyay. waxaa kaloo hadda ku habeynayaa qudradii aan soo karinay waaye asxaabteyda. maasha Allah rootigana daabaratid qudrad aad ku sameysid maasha Allah inaga caadi ma ahan. caruurta xaajiga ugu soo tuuraysiin maasha Allah aad u jecelyihiin xataa caruurta. suugo aad bixinaysa iyo waxaas midna ma jir sidaana lagu cunayaa. inaga caadi ma ahan. haddii aad mar aad sameysid mar kalena samee insha Allah waa lagu dhihi doonaa. because tastigiisa anaa idinku hubo insha Allah idinkana ka faa'iideysta si aad ugu sameysatiin xaajigiina iyo caruurtiina insha Allah. xabadan design-kan waa xabadan waxa waaye midii labaad aan sidan u soo sameynayno. nashqad walba waxaa idinka tusayaa insha Allah hal xabaan idinka tusayaa. hadda nashqadii koowaad aan soo tusay. nashqadii labaadna sidaan u habeynayaa insha Allah. haddii aad rabtid intaan xataa waa ka sii yareyn kartaa. markii aad fisinayso xir oo normal ka dhigan kartaa. daarto ka weynaysan kartaa intaan. size-ka aad u sameysanaysid adiga ay kugu xiran tahay ma fahantay. insha Allah waxaan rajeynayaa idinkana inaad ka sii faa'iideysan doontiin hadduu Allah raxmaanka yiraahdo insha Allah.
iga raali noqda xoogaa taleefana soo qaraacayo waa idinka raali gelinaya asxaabteyda ugu qaaliga ah insha Allah xabadii labaad hadda sidaan ayaan kusoo dhameynay maasha Allah tabaarakallah inaba caadi maaha waqti badan xataa kaama qaadanayso maasha Allah midii saddexaad ayaa hadda bilaabnay midii saddexaad waa soo fidsana iyadana insha Allah sidaan u habeenayo la daawada midii saddexaad sidee loo habeen doonaa waa isma maasha Allah rootigan hadii aad baratid habeen ayaad ku tuuranaysaa casho ahaan aad xaajigaaga iyo caruurtaada ugu soo tuuraysaa insha Allah xabada saddexaad sidaan u soo sameeynaa insha Allah wax sidaas u dhib badan ma ahan hadii aad mar fahamtid insha Allah adina waa sameysan doontaa maasha Allah inaba caadi maahan testigiisa waa casho yaro inaba caadi ahayn oo aad iyo aad ciyaalka uga heli doonaan maasha Allah tabaarakallah sidaan u soo duubaya insha Allah soo rul gareynaya midkan I hope in idinkana ka sii faa'iideysan doontiin hadba Allah raxmaanka yiraahdo sidaas aan u soo rul gareynaya midkan insha Allah maasha Allah xabadii saddexaad sidaan u soo rul gareeyay sidaan ku soo dhameystiraya insha Allah sidaan ku soo dhameystirnay xabadii saddexaad waaye xabada hadda soo dhameystirnay maasha Allah tabaarakallah waxaan rajeynayaa idinkana inaad ka sii faa'iideysan doontiin saddex design u sameysan kartaa design Allah design ka rabta u sameysan kartaa channel-kana insha Allah ku jiraa rootiyaal waa soo geliyay hadda idinkana hadda u baahantiin waa ka booqan kartiin insha Allah hadda saxankii ayaa waxaan soo marsaday butter saxankii aan butter soo marsaday kadib waan soo saaray ukunta ayaan mariyay ovenkiina hore ayaan u sii shitay wuxuu ii joogaa 180 kor iyo hoos wuu ii soo kulaaday hadda ovenka ku xiray maasha Allah tabaarakallah rootigeena sidaan uu ku soo baxay inaba caadiga ahayn maasha Allah dhadhankiisa inaba lagama sheekeyn karo insha Allah idinkana soo tijaabiya waa ka heli doontiin asxaabteyda ugu qaaliga fiidiyoga markuu idin soo gaaro like share comment-ga inta waa naga ilaabina like wax weyn maahan xageena waxay ka tahay dhiirigelin ay ka tahay adinka xageena waxba kama ahaba because suulka la dhac ku siinaysa wax weyn ma ahan maasha Allah tabaarakallah rootiga had sidaan ku soo baxay insha Allah waxa ku soo habeenaya saxana ku soo diyaarinaya gudihiisa sidoo ku soo baxana insha Allah waa ila arki doontiin haduu Allah raxmaanka yiraahdo hadda saxankii aan ku soo diyaarinaya insha Allah isla socod wanaagsan asxaabteyda ugu qaaliga ah I hope in idinkan ka sii faa'iideysatiin insha Allah hadana saxanka ku soo diyaarinaya kadibna sidoo ku soo baxa gudihiisa waa ila arkeysin naba caadi maahan soft aad u jilicsan waay maasha Allah tabaarakallah hadana waan jareynaa sidoo ku soo baxa gudihiisa ayaad ila arkeysin maasha Allah sidaan uu ku soo baxay rootigeeni inaba caadi maahan insha Allah idinkana ka faa'iideysta fiidiyoga markuu soo gaaro like share comment inta waa ka ilaabina waa inoo kulanti dambe iyo fiidiyo ku xigaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye guys